wuxuu ahaa Suldaan Suleymaan Al-Qaanuuni, wuxuu ahaa wiilka kaliya uu dhalay Suldaan Saliimkii koowaad, waxaana uu ahaa suldaankii furtay Istanbul, Suldaan Maxamed Faatix. Wuxuu dhashay 6 Noofembar 1494, wuxuu ku dhashay magaalada Trabzon ee dalka Turkiga. Wuxuu ahaa boqorkii 10aad ee Imiraadoriyadda Cusmaaniyiinta iyo khaliifkii labaad. Wuxuu boqortooyada qabtay 30kii Sebtembar 1520. Wuxuu ahaa boqorkii ugu waqtiga dheeraa boqortooyada, isagoo maamulayay muddo 46 sano ah. Wuxuu ahaa boqorkii ugu awoodda badnaa boqortooyada iyo mid ka mid ah hogaamiyayaashii ugu awoodda badnaa taariikhda Islaamka iyo aadanahaba. Wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee Islaam ah ee gudaha u gala Yurub, isagoo gacanta ku dhigay boqolkiiba 90 caasimadihii waqtiga adduunka laga maamuli jiray. Sheegay inuu ku fakari jiray inuu qabsado adduunka oo dhan oo lugihiisa hoostiisa uu keeno. Waxaa la sheegaa in boqorada Yurub ee waqtigaasi inay ka dambeyn jireen hadalkiisana maqli jireen. Waxaa la sheegaa in Yurubta maanta xuduudaheeda uu asagu gacan ku lahaa waxyaabihii uu geystay, isagoo loo aqoonsaday qarnigii 16aad boqorkii ugu awoodda badnaa ee xaakimka ka talinayay. Markaan usoo noqono dhanka dagaaladii uu qaaday, wuxuu qaaday 13 dagaal oo waaweyn oo uu dhan walba u qaaday, isagoo dhanka hoose usoo qaaday ilaa dhulka xabashida ee Itoobiya, Jabuuti, Suudaan, Ereteriya, Soomaaliya. Wuxuu boqortooyadii Boortaqiiska ka xoreeyay mandiqada loo yaqaan Badda Cas ama Red Sea, waana waqtigii uu halyeeyigii weynaa ee Soomaaliyeed uu ka dagaalamayay bariga Afrika. Waxayna taariikhanadu qaar sheegaan in boqortooyadii Axmed Gurey ay hoos imaan jirtay Suldaan Suleymaan, isagoo ciidamo bad u soo diray. Axmed Gurey markii uu la dagaalamayay Boortaqiiskii kusoo duulay inay qabsadaan Maka si ay u burburiyaan xabaashii Nabiga sallallahu calayhi wasallam una soo qaataan haraagiisa si ay gorgortan ula galaan boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Dhanka bariga waxa uu qabsaday saldanadda Cumaan, isagoo gacanta ku dhigay marinka badda ee laga soo galo jasiiradda Carabta iyo Iiraan, iyadoo ay soo hoosgaleen dalalka Qatar, Baxrayn, Kuwait, Sacuudi Carabiya. Isagoo sidoo kale dagaal ku jabiyay dowladda Safawiya, isagoo dib u qabsaday dalalka Ciraaq, Tigris, Georgia, Armenia, Tunisia, Algeria, Liibiya iyo boqolkiiba 90 caalamul Islaam, iyadoo si dadban ay hoos imaan jireen Hindiya iyo Indonesia. dhanka Yurub wuxuu dagaalo la galay boqortooyada Yurub waqtiga ugu awoodda badneyd ee Ali Habsburg. Waxaa jiray boqor markii uu Suldaan Suleymaan xilka qabtay bil ka hor asna xilka boqortooyada Habsburg qabtay oo la oran jiray Charles ama Carles. Wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo ay ka mid ahaayeen boqortooyadii awgiis ka talin jiray ee Ali Habsburg iyo dhulkii Andalus ee Spain oo ay hooyadiis waqtigaa maamuleysay boqoradna ka ahayd. Wuxuu sidoo kale si farsamo ah ku helay boqortooyadii muqadaska ahayd ee Roma, isagoo kula loolamay boqorkii Faransa ka talinayay, iyadoo dagaal uu dhex maray. Dagaalkaasina uu sababay in laga guuleysto boqorkii Faransa, Habsburgna looga dhigo boqortooyadiisii. Isagoo boqorkii Faransa warqad u soo diray Suldaan Suleymaan uga dalbanayay inuu caawiyo, waxaana hadalladiisa warqadaasi ka mid ahaa: waxaan waraaqdan u qorayaa buu leeyahay boqorka iyo taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahayba ninka madaxda u ah السلطان المعظم والخاقان المفخم الذي هو ملاذ جميع المظلومين بولي بقركا دنيا انت الظلمني نينك اي حقي سوى عررت بولي اعرض على حضرتكم ما في القلب حال نفتي دا كوشيران خوصا بندقيا يا وامحي فرديناند marka Ferdinand waa shaaralka walaalkii oo Majar Hungary ka talinaya. Ferdinand oo malik Majara marka weerarteen shaaralkaana annagu naga argoostay buu leeyahay, annaguna weeraray. boqorka marka idinku weerarteen bukan annaga naga argoostay, dabeetana maxbuus baanahay. fadligaaga uun iyo waxtarkaagu baan sugaa buu leeyahay. qiyaas France oo Catholica hogaamiso boqortooyinkii waaweyn ka mid ah oo boqorkeeda maxbuuska waa boqorka kale uu waraaq u dirayo Istanbul oo safiir dhan la dirayo oo waraaqda loo dhiibayo oo hooyadiina waraaq soo qorayso oo safiirintu la lugeeyo loo geynayo Istanbul si uu boqorada u sii daayo. Suldaan Suleymaan uu aqbalay dalabkiisii, warqadna u diray boqorkii Carles uu ku leeyahay inuu sii daayo dibna uu maamulka ugu wareejiyo boqorkii Faransa, laakiin uu ku gacan sayray, taasoo ku qasabtay in dagaal uu ku qaado, taasoo ugu dambeynna la jabiyay boqorkii Carles, isagoo cararahna uu ku dhintay jasiirad ku taal badda Mediterranean-ka. Dibna uu maamulkii Faransa ugu wareejiyay boqorkii Faransa. Wuxuu dhanka Yurub gacanta ku dhigay Giriigga,
Macedonia, Bulgaria, Romania, Ukraine, Moldova, Almaaniya, Serbiya, Hungary, Slovakia, Poland, Austria iyo qaybo ka mid ah Jarmalka, Ruushka iyo Talyaaniga. Waxaa la sheegaa in ka badan 10 sano inuu taagnaa goob dagaal. Waxay sheegaan inuu faraskiisu jaray masaafo ka badan 48,000 oo kiiloomitir, taasoo la micno ah inuu dunida oo dhan kusoo wareegay. Yacni 48,000 oo kiiloomitir waxay la mid tahay adoo dunida kusoo wareegay oo isla meesha aad taagneed kusoo noqday. Waxayna ciidamadiisu bari iyo koonfur u mareen saddexda qaaradood ee waqtiga dunida ka jiray, waa Aasiya, Afrika iyo Yurub. iyadoo taariikhyahanada Yurub u aqoonsadeen inuu ahaa mid ka mid ah boqortooyadii ugu awoodda badnaa aadanaha, iyadoo sidoo kale reer galbeedku u bixiyeen midkii weynaa ama The Magnificent, iyadoo sidoo kale loo bixiyay Al-Qaanuuni sabab la xiriira dastuurkiisa oo khaaska ah ee uu dadka ku maamuli jiray, iyadoo qaanuunkiisa u yaal aqalka Koongareeska ee Mareykanka loona aqoonsaday mid ka mid ah 7 dastuur ee ugu fiicnaa aadanaha. Markay taariikhdu ahayd 1566, da'diisuna ahayd 71 jir, aadna u xanuunsanayay, ayuu wuxuu go'aan ku gaaray intuu asagoo guriga fadhiya malkulmoodka u imaan lahaa uu u yimaado asagoo jihaad ku jira. Waxaa la sheegaa inuu dhowr jeer ka dhacay faraska xanuun dartiis. Wuxuu dagaal ku qaaday magaalada Sextusburg oo hadda dhacda dalka Hungary, waagaasna hoos imaan jirtay boqortooyadii Habsburg. Waxaa la sheegaa inay dhowr jeer ku fashilmeen inay furtaan magaalada sababo la xiriira qalcadaha iyo magaalada aad loo ilaaliyay. Waxaa la sheegaa in janaraalada ciidamadiisu u sheegeen in ay adag tahay in la furto, ciidamaduna daaleen, ayna wanaagsan tahay inay dib u laabtaan. Laakiin wuu ku gacan sayray, wuxuuna bannaanka uga soo baxay ciidamadiisa asagoo socod ku dhibayo, una sheegay inuusan weligiis dagaal ku jabin, hadday buur ka hor imaatana laba ka dhigi jireen, sababtuna ahayd fadliga Ilaahay iyo ciidamadiisa libaaxyada ah. Wuxuu u sheegay inay Ilaahay tala saartaan, magaaladana qaali ama muhiim ay asaga u tahay, aysan niyadda asaga ka jabin. Aslanlarım! Yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimizin nefesini indiren yiğitlerim! Son bir defa besmele çekip kafirin üzerine yürüyün! Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle! Yüce Rabbimiz, dualar ve rüzgar arkamızdadır! Zafer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum. Gün doğmadan ziket var düşecek. Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım. sheegaa inuu u jeediyay mid ka mid ah khudbadihii ugu fiicnaa ee loo jeediyay ciidamo si loogu dhiirigeliyo. Waxaa la sheegaa in isla saacado un kadib magaalada ay furteen, laakiin nasiib wanaag awood umuusan yeelan inuu arko qaabka ay ciidamadiisu u furteen. Markii uu khudbadda u jeediyay ee uu ka soo laabtay gudahana u soo galay meeshii uu ka deganaa ciidamada, ayuu istaagii ka dhacay, sidaas ayuuna ku dhintay. Allah u naxariistay. Hünkârım! Hünkârım! Hekim başını çağırsana! Hünkârım! 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 Wuxuu dhintay 6 Sebteembar 1566 asagoo jira 71. Wuxuu dhintay asagoo xisaar ku haya magaalada Sextusburg, waxaana dunida ka baxay maalintaa mid ka mid ah halyeeyadii ugu weynaa taariikhda aadanaha. Waxay farxad iyo maalin ciid u noqotay dowladihii Nasaarada, murugana u noqotay dhammaan ummadda muslimiinta iyo kuwo badan oo Nasaarada ah, kuwaasoo jeclaa cadliga iyo naxariistiisa.